waa mar kale iyo barnaamijkeennii ma og tahay maantana mawduuceennu waxa weeye wararka sheegaya inuu nool yahay hogaamiyihii naasiinta waddanka Jarmalka ee Adolf Hitler. Inkastoo dadka badankiisu aaminsanaayeen inuu dhintay hogaamiyihii naasiinta ee Adolf Hitler, haddana wararka ka soo baxaya maalmihii u dambeeyay warbaahinta waddanka Argentina ayaa sheegaya in magaciisa la yiraahdo Hermann Gutenberg oo 128 jir ah inuu sheegtay inuu yahay Adolf Hitler. muddo badanna uu isqarinayay, haddana waqtigii la gaadhay uu naftiisa caddayn lahaa. Hermann waxa uu sheegay inuu waddanka ku soo galay baasboor foojari ah kadib markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunku, isla markaana laga guulaystay waddanka Jarmalka oo hogaaminayay naasiyiintii waqtigaasi dagaalamayay. Master Hermann ayaa sheegay inuu noloshiisa kala badh isqarinayay maadaama ay ku daba jireen sirdoonka waddanka Israa'iil, kuwaasoo dilay badiba firxadkii naasiyiinta waddanka Jarmalka. Warbixintan ayaa fajaciyo yaab ku noqotay bulshada caalamka maadaama la aaminsanaa inuu dhintay hogaamiye awoodda badnaa ee waddanka Jarmalka. Adolf Hitler oo ka mid ahaa hogaamiyeyaashii geystay xasuuqyadii ugu daraa adduunka, isagoo weliba gumaaday dadka loo yaqaano Yuhuudda.